bismillaahi raxmaani raxiim. Sadohdaadii waa sida adiga ka dhigato. Guurka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay miis 4 lugood leh oo 4taa lugood mid hadduu liico uu miiskii jabayo oo kabitaan u baahan yahay. 4taa lugood waxaa lagu tilmaamaa lamaanaha iyo waalidiintooda oo ayaga dhalay iyo caruurta ay ayaga dhaleen iyo qaraabadii oo labada lamaano oo qaraabada ugu dhow u ah sida dumaashida iyo seediga. marka waa muhiim inuu xiriir weyn ka dhaxeeyo sodohda iyo yani lamaanaha in xiriir weyn ka dhaxeeyo. marka waalidiintu runtii waa aadane oo gafka dhici karo una baahan in loo turo loona samro. sidoo kale xaaska waa inay ogaataa inkastoo oo sodohdeeda ay diin ahaan xuquuq ku lahayn waxay xaq ku leedahay wiilkeedii oo yani haddii ay ku garab gasho uu ku janno tagayo hadduu ilaahay yiraahdo. runtii samirka loo samro sodohda waxaa ka hadlay nin mucallim oo quraanka xifdiga sameeyo oo Asian ah ayaa wuxuu dhahay dadka aan aqaano waalidiinta hooyooyinka oo u samra sodohdoodii ilaahay wuxuu badanaa ku arzaqaa inuu canugooda u noqdo xaafis macna oo quraankii xafido. يعني dad badan oo hunuuda yani ayaa noogu badan dhinaca mashaakilaadka sodohda iyo xaaska maadaama isla degaan. wuxuu ku leeyahay xaaska samraysay wuxuu ilaahay ku arzaqay in caruurteedii ay u noqdaan macnaa kuwa quraanka xafido. marka taasna waxay ku tusaysaa faa'iidada samirka iyo suturidda ay leedahay. sidoo kalena ninka asagana waa inuu u samraa xaaskiisa waalidiinteeda uuna ku kaalmeeyaa xaaskiisa inay ka duceysato ay ku janno tagto hadduu ilaah yiraahdo. dhinaca kalena waalidiinta ama sodohda ama seediga ama dumaashiga iyo kulli waa inay runtii ayagana u turaan lamaanaha oo ayan wax ka sheegin oo ay gadaashoodii ka hadlin oo aysan xaman. maxaa yeelay dadku warka waa isu sheegaa dhibaatooyin badan ayuu keenaa markuu uu yani carabkii xumaado. maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa uli waa qabowdaa ushi waa qabowdaa erey xumise ma qabowdo. marka erey xumo hadduu afkaaga ka soo baxo waxaa dhici karta inuu reerka dhan saameeyo. marka waa muhiim. waxaa jirtay sheeko ah yani sodoh oo gabadheedii xamatay oo tiri siday canuga u korinayso ma taqaana sida ilmaha loo koriyo ilmo koris ilaahay ma barin. marka gabadhiina waa maqashay xantii. marka hooyadii ku tiri anigaba waxaan hayaa cunug weyn oo adiga aad soo korisay oo celcelis u baahan adigana waxa ii sheegaysaa inaa ilmo koriyo. marka hooyadii waa garaysatay waa isu cudur daarteen waa heshiiyeen waxayna go'aan ku gaareen inay mar dambe isxamanin. marka waa muhiim insha allahu tacaala in lays walaashado oo maxaa yeelay quraanka ilaahay wuxuu ku yiri hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. macnaa waxaa isku tihiin maro is asturaayo. marka waa inaad macnaa wiilkaagii xaaskiisii adiga inaa asturto. sidoo kalena wiilka inuu asturo oo macnaa reerka xaaskiisa xaaskana inaa asturto macnaa ninkeeda reerkiisa. marka in leys wada asturaa fiican insha allahu tacaala. sheekooyinka oo dhinaca sodohda iyo mashaakilaadka badanaa waqtigii saxaabada kuma badneen maxaa yeelay iimaankoodii yaa sareeyay waxyaabahaasna waa ku yaraa. laakiin sheeko waxaa jirtay gabar shiinays ah oo sodohdeeda khatyaanka ka noqotay. markaasay waxay u tagtay nin culimo ah oo caqli leh. markaasay tiri sodohdeeda dhibtay waxaan rabaa inaan dilo ilaa heerkaasay gaartay. marka ninkii sheekh ah wuxuu dhahay waxaan ku siinaa caleentaas waxa ugu dartaa shaaha muddo bil ah laakiin waxa iga ballan qaadaa muddadaas bisha ah inaad si fiican ula dhaqanto sodohdaada oo u naxariisato oo aad dhahdo canugaagaan rabaa inaan cunto u kariyo. sideen u kariyaa maadaama cuntadaadii u bartay aan isla karina kaale cuntada. marka gabadhii sidii yeeshay muddo 20 beri gudahoodii sodohdii waa isbedeshay xiriirkoodii waa isbedelay. markaasay ninkii usoo noqotay waxay tiri sodohdeyda ha dilin inaan dilo ma rabo
hadda caleentina waa siiyey sidaan sameeyaa markaasuu yidhi caleenta caleen wax dilaysa ma ahayn waan kugu tijaabinaya laakiin waxaan ogaa haddii aad si fiican ula macaamilooto sodohdaadii inay insha allah isbedelayso taas ayaan ogaa marka sodohdaadii sida adiga ka dhigato waaye ogow marka waxaan leenahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu guurkiina noqdo guur lagu najaxo ilmihiinana ay noqdaan ilma indhaha ku nuursataan hadduu ilaahay yiraahdo marka isu tura isu naxariista is astura hadduu ilaahay yiraahdo sodoh seedi dumaashi كل يعني أسترنا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وبازي بسوري تي في عالمي يونيفرسال. جزاكم الله خيرا.